gabadha waa la qabaa nin baa qabo oo faransiisa oo muslina ay soo carartay adiga yaa ugu daray waxaas dhan ay wadeenay rabeen in ay gabadha xaajiyadeyda sharafteeda ku baabiyaan laakiin ma dhacayso waan taqaaniin waxaas iyo wax lamid ah inay iga suurtoobeen gabar la qabo marwa inaan si xaraana ku soo xariisto bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa xiisaa wararka kusoo dhawaada barnaamijkii hadalhaynta baraha bulshada iyo saacadihii ugu dambeeyay sida aad intiina badan la socotaan hadalhayntii ugu dambeysay waxaa baraha bulshada si weyn loo hadalhayay dhinacan ka ah social media kaasi oo lagu eedeynayay inuu haatan soo guursaday gabar markaasi uu nin kala qabay isla markaa nin ajnabi ah oo u dhashay wadankaasi Faransiiska kaasi oo ay ilmo u dhashay arrinkaas ayaa si weyn loo hadalhayay haddii aan carabka ku dhuftana waa Maxamed Buskud oo ka mid ah dhalinyarada caanka ah social media gaar ahaan YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo meelaha kale ee sida TikTok-ga marka waxa oo arrinkaasi ay daqiiqadii ugu dambeeyay ka soo jawaabay isagoo markaasi soo galiyay isaga oo rahadlay reerkeeda isla markaa shaqii lagu meerinayay si bal arrimahaasi uu uga hadlo koronto ayaa isha si gaar ah u hayay gooreen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bulshada Soomaaliyeed meel baa joogtaan waxaa idin leenahay caafimaad ku waara runtii Cabdiqaadir saacadii ugu dambeeyay Yaasiin Haliyeen inay dhahaan ayaa wuxuu soo dhigay muuqaal uu kaga hadlayo isagii nin kale xaaska cusub Maxamed Buskud runtii waxa uu ku eedeeyay in muxuu ahaa xaaska nin kale uu qabay isla markii bulshada Soomaaliyeed waxa uu soo sawirmay dhacdadii Turkiga muxuu ahaa warheeda maxaa sababay in naag la qabaahi ay intii caruurteedii iyo reerkeeda ka soo cararto ay reer cusub samaysato tii hore kale ayaa aad loogu dhaghayay runtiina waxaa laga warsugayay xalay ilaa iyo maanta Maxamed Buskud bal arrinka iyo jawaabta uu ka bixin doono runtii eedeymaha loo soo jeediyay oo uu ka jawaabay waxa uu keenay cadeeman adar magaalta waxa mataqaana cadeena reebane marka hore la duubtaa si hadhow bari ka maalin hadii caqabad walbo ayaa muxuu Aisha ku soo wajihi karto cunugaaga adiga aad dhashay ayaa lagu dhigi karaa war cunugaadiga ma dhaline aaba kala dhalay marka muxuu Aisha cadeynteeda la imaw aw dhigi maxalla DNA iyo balaayo waxa adiga aad leedahay in lagu diraa suurtagal ah marka si arrimo walbo aad hadhow bari ka maalin aad isaga difaacdo hadda maanta diinkooda duubid uu sanhayn lahayn recording uu sanhayn lahayn fashil ay maan lahaa marka mararka qaarkood waxa isleedahay uu fiican tahay in recording la galo marka runtii uu ku jawaabay muxuu ahaa sheegin kasto aan toos u dhameysan hadana waxa uu xaqiijiyay in muxuu ahaa sheekh uu ku meheriyay sheekh waa la soo bandhigay adeeradii walaayada lahaa ee sheekh ku wareejiyay waa la soo bandhigay runtii waxaan dhigi karaa cadeemo waafi ah oo ku filan ayuu muxuu ahaa sheekh bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigay inay muxuu ahaa xaaskiisa tahay oo cadeeyay waa dadaaleen sinaagtiis si fiican eedeynta waxa qayb ka ahayd oo dadka macnaha ay ka sii hadleen waxa la sheegay in gabadhan hadda uu social media ku soo bandhigay horeyna uu sheegi jiray sida laga soo xigtay isaga afkiisa hadii aan keen xaaskeyga oo ka artaa baraha bulshada waan yar waalahay marka quraan sar haleegiyo ama xayb haleegiyo marka arrimahaas ayaa hore waxa la soo bandhigi jirin laakiin gabadhan waa uu soo bandhigay arrimahaas laftigooda macnaha in la keeno qayb ayay ku lahayd horta niyo ku sheegaya ninka raga horta waa kii mowqifka leh ee go'aanka leh anigan la hadlayo waxa suurtagal ah inaysan qorshaha iigu jirin inaan qabaahi inaan baraha bulshada la imaado sida aniga aan jeclahay aan ka hadlayaa laakiin se mararka qaar ay kula galay xabada adiga aad rabtid inaan nolol la wadaagtid aad jeceshahay hadii ayadii ay rabto baraha bulshada inay soo muuqato adiga waa soo muuqataa ayada say ku diiday marka ayada ku soo jiidayso ayada ku keenayso hadaa dhahayd xitaa nihow miyaha adigana YouTube baraha bulshada gooni ugu jiro anna aan ugu jiro hadaa dhahdid waxaa lagu leeyahay niyow miyaha in la ogaada diiday caqli wadamo lagu leeyahay marka hadba inta badan ninka ragga waxaa suurtagal ah inuu si wax u jecel yahay laakiin laga diidayo meeqa aragnay oo ayagoo diidan inay baraha bulshada xaaskooda la yimaadaan haddana xaaskaaga jecelkeeda iyo hobbigeedii sida ay jeceshahay mararka qaarkood way kula galaysaa inaad soo bandhigtid xitaa duruuf noocan oo kale kugu iman karto oo ku aadan inaa cadeeman iyo marqaati aad la imaato marka odayga haddii laga xoog badiyeen ayaanan muxuu ahaa lasii buush garaynin faraha laga qaado muxuu ahaa cimaamadaasna wuu saartay way ugu jirtaa laga lexdo waayo master marka horta bal waxaan rabnaa inaan daawadayaasha nala eegaan
qaabka uu u dhacay meherkiisii iyo markii uu doonanayay iyo reer qaabka ugu doontay iyo cidda uu la hadlayay adeeradiisa iyo hooyadeed iyo oo dhinaca iyo sidoo kale ninkii hore oo la sheegayay in uu naagta qabay ee carruurta u dhashay isagana halkii uu ku dambeeyey isla buskud ayaa afkiisa uga jawaabay daawasho wanaagsan. laba adeer oo ayada aabaheed ku hooyo ku aaba ah oo aan ka doonanay oo na siiyey oo nagu mehriyey iyo shiikha yuusuf masaajidka iyo tambori ciddii taqaana Europe Sweden iska dhaaf Scandinavian ugu weyn ayaa nagu mehriyey igu mehriyey video waan ka duubnay waan idin soo daynayaa insha Allah. tan kale waa la qabaa ay leeyihiin gabar muslimada oo xarig islaam ku dhalatay nin gaal ah oo diin islaam haysanin ma qabi karaa horta su'aashaas bas iga jawaaba waa may aabihiis waa nin macallin ah oo qur-aanka laga yaqaano walaalihiis intay degan yihiin anaa u meheriyey waa dad fiican weeyaan insha allah haddii ilaahay idmo adeerka okay dhan waa ladinka aqbala idinkan khayr allah idin siiyo haye maasha allah labadaba adeerkay okay saas aabay walaalihi allah yaxfadakum way daawadayaashana waa ujeedeen sida uga jawaabay iyo ninka xaaladii sida ay tahay runtii maxkamadan la yirahdo social media hani waqtare khatar waaye ha marka qaar haddii lagu soo taago baada ilaahu wariir iga dhigaa leedahay waxaan ku dhahay ilaaba lagu soo kusa feeraha kusa ninkii nin ma tahay bisaa meeshaan wax ka qaadi karo indhadeega muxuu ahay sheeg hadoo la imaado runtii cabdiqaadir markaa fiirisid cadeymaha uu ninka odagaa soo bandhigay maxamed buskut hal point uu kugu soo laaban karaa saaxiib macaane waxaa suurtagal inuu kugu soo laabto bointigaas uu ka aadan ninkii hore u qabi jiray ee faransiiska la sheegay oo haddana aad tiri muxuu ahay sheeg ninka awalba gaal oo ahaa muxuu ahaa hadalhayntii magaalada la soo geliyeen ninkaas inuu nin islaam oo faransiis ahaa ayaa la sheegay marka haddii soo baxkan gaalo ahaa ila ee meesha ku jirto oo gacantana lasoo jiiday iyada naftirkeeda waxay u baahan tahay bayaanin iyo faahfaahin ay u baahan tahay weliba lagu dhageeya saaxiibow waayo dulduleelada hal mar soo dhamaystir albaabadana hal mar soo wada xir toos ha lagaaga wada qanco muxuu ahaa ii sheeg weli xoogaa arrimaha qaarkood iftiimin ay u baahan yihiin inaad barnaamij kale dib uga soo diyaariso oo ninkii hore kii kaa horeeyey meesha isku dambeeyey weli waa laga rabaa carruur waxbana waa ulahayd inkastoo ninka faransiisna uu yahay oo dalkiisana uu joogo laga yaabaa in dowladda markaas gartaas ay gashay ama ilmihii u dhashay asiga loo xukumay laakiin hadda waxaa muuqanaysa in kasoo wada dhamaatay reerkaasi gabadhan oo ay halkan soo wada raacday ha saas waa ujeednaa anaga waa umuuqanaa laakiin duleelada weli lagaa heli karo waa waxa aan iftiiminayno weli duleel yara jiri karo oo dhinacaas ku aadan maxaa yeelay waa isqabeen waa inay isfuraan ama ninka kala hada muslim aadan reerkii hore ana iska soo baxdaas xoogaa wax keen doonto u baahan in halkaas anaga haddii aad si xalaal ah aad isku qabtaan oo waxaaga ay saxan yihiin dokumentiyadaada ay saxan yihiin qof walaalaha tahay xilligan aan kula hadlaya ilaah dartiisa aan u afxiranahay aan u soomanahay maadaamay maanta isniin tahay oo kuusoo duceynaynaa in culeysyada jira qamiisa waahida markay saas ahay la yaabina marka waa kuusoo duceynaynaa in caqabadaha haysta ay kugu gadaamin inuu ilaah kuu fududeeyo hadday wax qaldan yihiin oo wixii qaldan inaad iska saxdo adiga lagaaga baahan yahay ragga odayaasha haddii dagaal social media idinka dhexeeyey ay tahay arrimaha hadda jira ay jiitamayo waxaan dhihi lahaa qoyska layskama galan ninka raggaa meelaha aan laga galin ay qayb ka tahay ha kasoo marina dhinacaas haddii aad si kale isku haystaan saaxiibayaal haddii si kale aan laguga heynin oo cadeymo iyo markhaatiyo guurka naftirkiisa ahay laguga haysto inta hadda aad soo bandhigatay oo aada bulshada usoo bandhigtay haddii weli cadeymaha qaarkood lagaaga baahdo inaad soo bayaaniso muhiim ayay u tahay waayo haddaad arrimaha qaarkood la aamusto waxaad noqonaysaa sida dadka qaar oo kale aad noqonaysaa inaad jaahil bixisid bulshada ka jaahil bixisid oo arrin muhiim oo loo baahan yahay inta aan muuqaalkan kan ku-xiga aan ku kulmi doono dhammaanteeda isku duuban kaas adi joogin kan ku-xigo haddaad adi joogin aan la haddaa joog hay soo xir intaan kulmi doono dhammaanteeda isku duuban sidaa ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu